السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وأبو ميديا halkan uga barateen inuu idinka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kooda ugu xisaabay waa maalinimo Isniina 1 bisha 6 2020 waxaan warkeena ku bilaabaynaa madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Cali Gaas oo weerar afka ah ku qaaday gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee qaranka doorashooyinka Marwa Xaliimo Yarey iyo waxaanu kaloo idiin haynaa madasha xisbiyada qaran oo shir saxaafadeed ka soo saaray hadalkii dhawaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre fadlan haddii tahay daawade marka ugu horeyso soo booqato channelka subscribe iyo like saar kadibna gambaleelka furo si aad noola socotid adiga oo mahadsan haddaba waxaan warkeena ku bilaabaynaa duhurnimo madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu weerar afka ah ku qaaday maalinimadii shalay isagoo ku sugan xarunta maamul goboleedka Puntland ee Garowe Marwa Xaliimo Yarey oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heer qaran Cabdiweli Cali Gaas ayaa waxa uu hadalkiisii ku furay Xaliimo Yarey haddii aad weydiisid oo tiraahdid asbuuca ina xiga Sacuudiga doorasho ma ka dhici kartaa waxa ay kuugu jawaabaysaa haa taasoo uu ku micniyay Xaliimo Yarey inaanay ahayn qof go'aan ah waxa go'aan adag leh waxa uu yiri hadalka la wada ee laga walwal qabo ee ah inay villa Soomaaliya waqtiga ku kororsato waa mid ay isla ogyihiin ayuu yiri guddiga doorashooyinka iyo dowladda haatan jirta ee uu hogaaminayo ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu dhanka kale hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre uu ku sheegay oo yiri waa mid lagu beer la xawsanayo oo lagaga raadinayo ayuu yiri xisbiyada ama siyaasiyiinta u taagan buu yiri inay u tartamaan doorashada nagu soo wajahan sanada 2021 haddaba Xaliimo Yarey oo ah guddiga ugu sareeya guddiga doorashooyinka ahna gudoomiyaha doorashooyinka qaran heer qaran ee madaxa bannaan Marwa Xaliimo Yarey hadalka uu Cabdiweli Cali Gaas ku eedeeyay ayaa waxa ay tahay mid aanay ka muuqan ama aanay dhaqankeeda lahayn waxaanu dhanka kale idiin haynaa madasha xisbiyada heer qaran ee hogaamiyaashii hore ee madaxweynayaasha dalka soo maray ay ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif oo ay ugu cadcad yihiin ayaa waxa ay shir ijraa'id shalay ku qabteen caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho waxa ay ku soo saareen amaba ay kaga soo saareen war qoraaleed ay ku taageerayeen hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre oo ay ku tilmaameen waa hadal wanaagsan waana ku taageersanahay waana ku qanacnay ayay dhaheen go'aanka uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre soo jeediyay haddaanu haddaba u gudubno daawadayaal dhanka iyo dibadda wararkeena inooga imanaya cariga Mareykanka ayaa waxa ay sheegayaan weli in ay sii socdaan mudaharaadayaasha iyaga oo ku fiday dhammaan isteedyada uu ka kooban yahay dalkaasi Mareykanka halkani waa magaalada Los Angeles oo baabuur lagu gubay iyadoo lagu sameeyay goobo fara badan oo ganacsi laguna burburiyay waxaan kaloo yeelnaa daawadayaal cariga Ingiriiska saynisyahanada ugu sareeya ee xagga caafimaadka ee dalkaasi ayaa waxa ay walwal ka muujiyeen in haddii si dhaqso ah loo qaado lockdown-ka amaba bandowga dalka saaran uu ka sii dari karo ayay yiraahdeen amaba uu keeni karo caabuq hor leh oo dalka laga helo amaba si sahal ah uu cudurku u sii faafo ayay leeyihiin waxa ay yiraahdeen ma habboona in lagu degdego in laga qaado lockdown-ka dalka waxaanu codsan lahayn ayay yiraahdeen in lagu sii daro waqti dheeriya haddaba waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal dalka Ruushka ayaa isaguna waxa uu dhameeyay isbitaal caalami ah isbitaalkan oo la sheegay in 2,000 oo qof ka badan ay la dhigi karo oo bukaana oo isbitaalkan oo ay u dhameystiran yihiin agabka caafimaad oo dhan haday ahaan lahaayeen haamaha naqaska iyo sariiraha caalamiga ah ee loogu talagalay qaliimada iyo meelaha loogu talagalay in bukaanka lagu baxnaaniyo marka uu cudurku uu ka baxo Ruushka ayaa moodaa inuu aad iyo aad ugu dadaalayo inuu xakameeyo cudurkan inuu dalkiisa ku faafo waxaan kaloo idinayna daawadayaal haddaanu galno wararkeena Afrika Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxa ay bilowday olole ka dhan ah inay la dagaalanto faafitaanka cudurka coronavirus iyada oo dad si xilkasnimo amaba iskood isu abaabulay u shaqeynayaan ayna buufinayaan dhammaan meelaha baakimada ah jardiinooyinka lagu raaxaysto laamiyada wadooyinka waaweyn gabi ahaanba iyagoo ku buufinaya sunta nadiifisa
waa Bolmog Media tan iyo kulanti dambe oo xiiso